siyaasiyiinta madasha wadatashiga iyo toosinta qaranka oo shir jaraa'id ku qabtay maanta magaalada Hargeysa ayaa faahfaahin ka bixiyay shirka tala qaran ee loo ballansan yahay inuu dhawaan ka dhaco magaalada Hargeysa sidoo kalena xukuumadda madaxweyne Axmed Siiraan iyo ku eedeeyay inay faragelin ku hayso golaha baarlamaanka dalka iyagoona gaashaanka ku dhiftay falkii gudoomiyaha xisbiga UCID shalay taageerayaashiisa looga horjoogsaday madaarka magaalada Hargeysa nimadii iyo umadnimadiiba halkay ku sii socoto waynu aragnaa ولينا واحد كقدرين مركز إسلام وحي أو مقدقرية سيد تايم كلقاها اللاي وكان هرف لي حسن قدوميه ورنكا وكي شنددي سيسقوت سيدنا ايه رقا وديد انه رقا وهولين هرف لي شاليت هو كوي اويا اي مركية قال مسمي مقالة الهرقيسة ودمي ما انتين ريالي كما سودق ايو واتي دقاقضي waxaan taa ku yara kamid ahaa saaxiibkay ka hadlay cirray imika soo degayay Hargeysa wixii mucaarad inay dhaqaaqaan oo ay garoonka tagaan meesha inaga u dhibanay aabahoodu ugu dhiman in riyaalna waxay ka yiraahdeen waadii ay maqlayeen oo kula ka yara arbalka jooga meesha waa meesha shalay waradaga lagu xumaynay waa madaxweyne ninku waxa kula hadlayay madaxweyne qarankan وهلا تا شواب عاد مضوا كبح سترين كيلو وحلا وضته وأنو تجنو ولكن لو دي ذا ينكي ما شاء الله إنه عرقنا ترى قراني لسوتشي دي حسبية ضعي وضعني مكان وحوي مد حسب يعني مكان حكومة ضحية كل مية وهراء وقفتي ويا هراء وقفتي لو كوني اللحدي وقفتي أيجي يقعد بقى وقفتي والله بدأ معارض هامركه ودب حكم كهيسي اللهم صل على نبينا محمد مدحوينهنا maanta ayaa halka ka hadlayay oo si adag u hadlay oo waliba xukuumadii markaa ku yiri hadii xukuumaddu ay ictiraafi weydo qaadan weydo talooyinkan halkan doodan qaran ka soo jeedinayno annakuna xukuumadii ina reeyalo madaxda ka ah ee udub ma ictiraafsan halka ka wasiirkii muxuu ahaa daakhilu uma sabweyn oo muxuu ahaa culus haya wuxuu cambaareeyay wuxuu yiri muxuu ahaa aad soo jeediyay in ay jiraan rag xisbiyada iyo muxuu ahaa mucaarifuna oo xamar muxuu ahaa lacag laga siiyo taasina waa eed weyn oo aan meesha ku jirin laayiq ahayn wax cadeynana uma hayo dawladdu wax weeyaan faragelin badan bay ku haysaa baarlamaanka iyo muxuu ahaa xukuumadda iyo garsoor waa saddex dhadhaar oo isdheelitira inay shuuntooda midna mid kale faragelisana muxuu ahaa ma aha laakiin waxaad moodaa inay dawladdu gacan haadis iyo yeedhiyada ay ku hayso dhibaato badan ay ku hayso muxuu ahaa baarlamaanka si kastaba ahaatee asxaabta mucaaradka iyo madasha wadatashiga oo hore shirkan tala qaran u cilaamiyay ayaa marba marka ka dambaysa ku sii adkaysanaya go'aankooda qabsoomida shirkaasi iyadoona maalmo kooban ay ka hadhay muddadii loo cilaamiyay ayaa dhanka kale xukuumadda talada dalka haysa ee kulmiye ku adkaysanaysa inaanu marnaba dalka ka dhici doonin shir qaran oo ay asxaab mucaaradi wado balse waxaa laga wardhowrayaa halka ay saldhigato go'aanka ay xukuumaddu ka istaagtay shirkan tala qaran iyo ku adkaysiga asxaabta mucaaradka inay qabanayaan maxamed yuusuf bakayle magaalada Hargeysa.